sida aynu ogsoonnahay dulqaadku waxa uu ka mid yahay dariiqyada loo maro jidadka guusha ee lagula dagaalamo culeysyada iyo cadaadisyada noloshu ay wadato ee keena dib u dhaca qof walibana uu suurogeliyo rumaynta riyooyinkiisa iyo rajooyinkiisa nololeed iyo weliba xaqiijinta himilooyinkiisa iyo ahdaaftiisa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad u jeediyay maalinnimadii Axadda ee toddobaadkan aynu ku guda jirno wuxuu qayb ka mid ah kaga hadlay dulqaadka oo uu ku tilmaamay inay walaalo yihiin doqoniinimada. hadalkaas madaxweyne Biixi ayaa wuxuu bulshada ka dhex dhaliyay hadal hayn badan waxaanay dad badan isweydiiyeen sababta ka keentay in madaxweynuhu dulqaadka iyo doqoniinimada iskarab dhigo. madaxweyne Biixi oo khudbadiisan kaga hadlay dadka weerarada u geysta ciidamada kala duwan ee dalka iyo khasaaraha ka dhashay ayaa yidhi waxaan tacsiin u dirayaa ciidankii qaranka booliiska lagu laayay ceelaf weyn oo aan la garanayn sababta loo laayay kuwa dhintay Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Allah inoo caafimaadiyo halkaa ceelaf weyn iyo degmada garanmayno wax ciidankaa lagu laayay alliyo wax dhibaato ciidanka ay isugu yimaadaan oo lagu laayo oo maanta la qiri kara ma jirto shirooyin baa markii hore lagu leeyahay saraakiisha booliiska ee jeelkaadiyadana wax alli wax loo laayay aan la garanayn waxa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranka si dhab yar isaga laayo dabeetana haddii laba dulqaato qaranka dulqaato laga balnimada hala ilaaliyo xagga hala wareego inay noqoto wada xalaal ah in ciidanka qaranka la laayo maalin walba oo dabeetana ay noqdaan reerahayna laba jirna ay kala baqdaan oo ninku hadduu qolo yahayna aan la taaban karin reerkooda laga baqanayo hadduu qaranka yahayna aan lagu soo degdegaayo bilaacilo lagu dilaya wax dhici kara maaha haddaynu laba doonayn xukuumaddu ha dulqaadato dadka ha la waaniyo gacan qabo ha lagu maamulo laakiin dulqaadka iyo doqonnimadu waa walaalo lama kala saari karo waxayna tahay waxaynu gaadhay dulqaadkii intay qaranku dhaafay imika inuu doqonnimadii ku jiro oo maalinba qaranka uu meyd soo waragsanayo oo ay tahay ninkii waa lagu ooyaa waxay la tahay taasi inay dee soo afjarmayso caqli ka badan la keeno dhibyaraanta ciidamada qaranka loo leenayo. madaxweynaha khudbadiisa oo ahayd mid ahmiyad ballaadhan u lahayd bulshada kana hadlaysay khasaaraha ka soo gaadha ciidamada dalku weerarada ay dadka qaar u geystaan oo xal u baahan ayaa haddana waxaa khudbadiisa sheekhiyey kelmadda uu isku garab dhigay dulqaadka iyo doqoniinimada ee uu ku tilmaamay laba walaalo ah. geesta kale madaxweynihii hore ee uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilka kala wareegay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo in badanna ay rafiiq ku ahaayeen siyaasadda ayaa waxaa xusid mudan in sanadkii 2015 uu jeediyay khudbad aad moodo inay jawaab u noqonayso khudbadda madaxweyne Biixi uu jeediyay maalinnimadii Axadda ee toddobaadkan aynu ku guda jirno. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maalintii 18 May ee sanadkii 2015 jeediyay khudbadaasi wuxuu dulqaadka ku tilmaamay inaanu ahayn doqonnimo balse uu yahay sahayda siyaasiga suuban waxaanuu yidhi maanta aniga oo cimrigaa jooga layga biqi maayo inaan dibindaabiyeeyo dalkan iyo dadkan dummadeyda saaran sabarka iyo dulqaadku ma aha doqonnimo balse waxaan u aqaan sahayda siyaasiga suuban. dal labaad ragga uu gurigu ka hayo inay dalkan madax ka noqdaan waxaan leeyahay war damciinna ku dara tudhaale iyo la jecelo oo waa la doogay yaa la dacaroon. si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata inuu faraq u dhaxeeyo hogaaminta siyaasadeed ee madaxweyne Biixi iyo saaxiibkii Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo door libaax ka qaatay inuu madaxweyne Biixi ku guuleysto kursiga Soomaaliland looga arrimiyo doorashadii 2017 dalka ka qabsoontay. hadalka madaxweyne Biixi ayaa noqday mid bulshadu aad u faaqiday oo ay isweydiisay sababta ka keentay madaxweynaha isagoo ah hogaamiyihii dalka. si kastaba ha ahaatee hogaamiyayaasha siyaasadeed ee dunida soo maray ayaa kuwooda ugu hogaaminta wanaagsanaa waxay caan ku ahaayeen dulqaadka. Cabdirasaaq Sharmaarke, Badda Cas TV.